رمضان صوما 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 Aabbo wergaban ku nahay dunidan aan joogno aabbo warahdayda gabay baan kugu ammaanaye aabbow intadii gashaan ku axsan faliye iloobi maa wanaagada haddaan ilka la igaynin adduunyadan dhex joogno idil ahaanteeda afarteedan geesood uunka kala jooga allihii sameeyaan ka baryi inuu ku dhowraaye ilmaha kolkii aan nahay oon wax garanayni aayadaha qur-aankiiyo xadiid lagu italeesho adiga i barayo waan ogsoonahay abaalkaaga maan gudi kale waa un dadaalaye unugyada jirkaaga baan qayb ka ahayaabe isirkiiyo halkii aan ka yimid adiga weeyaane ilinkaan maraayaba ducaan ku aqrinayaaye awoodoo dhan allahayo wadaa lagugu eegtaye oo ilaali waalidkaysay barbaarsheene asluubtiyo dhaqankii wanaabay igu dadaaleene itaalyadii makhluuqan runtii laguma eedeeyo aabbahay iftiinkuu i baray igama dahsoona ildogsiga hadduu waalidka irida ku joogo ama uu ifka nool yahay waad istareexdaye amuuraha adduunyadu ma ahan saad u aragteen aqoon iyo nin aabbihii nool yahay kala awood dheere abtiriis haddii ay tahay sirka soomaali midkan toosu eeganahayo laygu aqoonsayo allah baan ku dhaartay xaqiiq aabbahay weeyaane orood laguma gaare adduun waayabtaala weyne adigoo haminayuu durbaaba soo afgo'ayay ajashiisa ka gadaal ma jiro ruuxiyaa joogay aakhirana gurigii rasmiyoon ebid dhammaanayne allahayow hadday tahay adduun iminka aan joogno ama ay aakhiraba tahay eebba hortiisaye aabbahay rabbiyo ku siiyi nolol ammaanaysan adigoo ka raaliya rabbow u aakhira joogo udgoonow rasuulkeeni rabbow way ishaleelaane abuubakar sidiiqiyo asxaabtii uu la jaar noqdaye u hibeey ammaankii jannaadoon ebid ammaanayn